hal mas'alo ma idin sheegay de wax waa academic oo barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxsiyo iyo adab al-bahth waa la idin dhigay laakiin midun ma idin sheegaya istikhfaaf uqul الناس walgaayay kugu dhaceen bini aadamku inaan waxba garanayn hamoodin tamaaleedu waa maxay soo diyaar garow dad rabteen in bini aadam wax sheegto uquushooda ixtiraam wax walba dadka way ku jiraan qaar ka aqoon badan baa ku jira qaar ka waayelsan baa ku jira qaar ka tajribo badan baa ku jira marka meeshu maan buuxiyay hays oranay dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan ma jira laakiin waxay ka wahsadaan in waqti ku bixiyo hal arka daris waqti aanu jeedinay sanawaad inaan qoraynay waxa akhriskaagu ha bato intaad rabto inaad wax sheegto waxa ka horeeya in adigu aad dhaansantay waxa akhriskaagu inuu bato waxa akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombiyuutarkaagu ha kula socdaan buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faa'iido idaacadda markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysaa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad imika kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto waqtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsa ma ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awoodo ee baxtiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambana inaad garato wax kasto aad u baahan tahay madaanta culamadii hore xufaad bay ahaan jirtay culamadii dambe waxay dhaahdaan madaanta yaqaaniin haddaad garanayso mas'aladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallahi fatxiga waa ku qorayd oo fi baabi kada buu kaga warramay minhaajkuna baabkaas kaga warramay ka waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa mas'alo kastoo ku timaada halkaad ku raajici walidaalika bay culimadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba mid uma la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabka dhan uma wada baahnid kitaabkaada kasto aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badan oo aad garanaysaa inay ku jiraan laakiin waxa kaaga soo horbaxaya waxa ama kugu cusub ama taxqiiqa ama ku faa'iideeyay waxaasi waxaad u baahan tahay kitaabka jaldigiisa lagu qoraa beejka intaas mawduuca intaas uu sheekhu kaga warramaya beejka inta mawduuca intaas kaga warramay marka mar kasto aad kitaabka jaldigiisa akhrido waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeyo dhamma waxay tahay ama se kitaab al-fawaid agtaada hayaallo sido kitaab al-fawaid kaaga sido mas'alo ku cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaar ah aad ku qorto ay ka gashaa jirto idan general knowledge ka waxay dhahdaan al-macluumaat al-aamma ba badanaysa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofku macluumaadkiisa caamkii ka badayay marka macluumaadkaaga caamkii bato في كل المواضيع تصور ما تكهليس أرجع قرآن الله مركب حويا استخفاف عقول الناس يدون كل عين مركب ربطان وحشيكتان 40 هذا دقيقة سكسو ديار قرو والله أعلم